halkani waa dhismaha wadada Allay Baday Arabsiyo waxaana ka soconaya horumar ballaaran dhismaha wadadana waxay kaalinta koowaad kaga jirtaa mashaariicda muhiimka ah ee ka socda gobolka Gabiley waana mashruuc ay bulshadu u babacdigtay dhismihiisa waxaana maalinta ka dambaysa soo kordhaya bulshada kala duwan ee qaadhanada ku deeqaya hirgelinta dhismaha wadadani waxaana maanta guddiga gacanta ku haysa dhismaha wadada Allay Baday ay deeq lacageed oo dhan $1,000 kala wareegeen Sheekh Caaqil Cabdilaahi Qaliin Fariid oo ay soo wakiilatay Xaliime Axmed Ducaale oo kamid ah muwaadiniinta Somaliland ee ku dhaqan Ingiriiska waxaana ugu horeyn deeqdan faahfaahiyay Sheekh Caaqil Cabdilaahi Qaliin Fariid Xaliime Axmed Ducaale waa bari oo joogta Ingiriiska inay wadada Allay Baday oonay weligeed aanay arag Gabiley baa gobolka mooyaane aanay arag halkay ku dhalatayna gobolka galbeed ugu xigo halkay lacagta ku soo bixisayna gobolka bari ugu xigo ugu mahadnaqaynaa waana idinka gudoonay $1,000 ee wadada Allay Baday adigoona aragad ku soo deeqday aad baana lagu mahadnaqayaa Suldaan Axmed Samaale ayaa xalay ila soo hadlay wuxuu yiri inanta waxaad iga gaarsiisaa anigoo Axmed Samaale ah in aad mahadnaq iyo duco waan iman kari waayay oo waan yar xanuunsanayaa inaad iga gaarsiiso ayaan ka codsanayaa buu adiga iyo asxaabtaadaba iyo inta wadanka Ingiriiska ka joogta inaad aad iyo aad ugu hawlgelisaan inay gobolkooga wadada Allay Baday khaasatan wax ku soo taraan ka codsanaynaa sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga gacanta ku haysa dhismaha wadada Allay Baday Cumar Faarax Cabdulle iyo sidoo kale xogayihii hore ee degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakor kana mahadnaqay deeqdan ay maanta soo gaarsiisay Xaliime Axmed Ducaale waxa kale oo maanta halkan mahad ugu celinaynaa Xaliimo Axmed Ducaale waa bari oo maanta soo dirtay deeq ay ugu soo deeqday sidii uu sheegay Sheekh Caaqilku Cabdilaahi Qaliin Fariid wadada isku xidhaysa Allay Baday iyo Arabsiyo wadadaasi oo faa'iido badan oo dhaqaale iyo mid bulshada u yeelan doonta ummadda reer Somaliland inay kaga faa'iideystaan ummadda kale ee gobolka soo jeeda ama reer Somaliland ee horumarka jecelna inay ku daydaan inantaas sida ay u soo dhiiratay inay wadada caawiso cid walibana ku soo hagaajiso ciddii mas'uulka uga ah wadanka joogta ee uqaasho ay ka mid tahay wadada Allay Baday waa wada bilaabantay 2014 ilaa maantana socota aynu marayno 2019 muddadaas waxa wadada u jiitamaysaa waa xaalad dhaqaale marka dhaqaalihiina waa dhaqaalaha lagu xisaabtamayo ee lagu shaqeynaya waa dhaqaalaha ku jira jeebka bulshada marka bulshada waxaan leenahay war wadada hore ay naga dhamaatay idinku baa dhisayo idinku bid sugaysaa hadaad hore soo saartaanna hore u dhamaani hadaad dib uga dhigtaanna idinku baa idin sugi anigoo guddida magaceeda ku hadlaya waxaan maanta halkan aanu diyaar u nahay inaanu duco u gudbino oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiino walaasheen Xaliimo Axmed Ducaale waa bari dalka Ingiriiska ku nool oo sidaa laga soo dhawaajiyay iyadoo oo maanta ku nool gobolka galbeedkiisa wadaduna barigiisa weligeed arag haddana $1,000 ku soo deeqday waxaan leenahay qowlkii rasuulka ayaan ka soo dheeganaynaayo badana $1 oo ka qiimo badan $100,000 saaka markaan soo baxay Suldaan Axmed Nuur wuxuu reeynanta igu salaano waxa talaada hadii maanta joogi lahayd madax iyo mijahaba waanu ka dhunkan lahayn caafimaadkeeda ha wanaajiyo cibaadadeeda ha wanaajiyo ubadkeeda ha wanaajiyo haddana waxa aan ka gudoomi doona insha Allah taala $1,000 caaqilkeena Caaqil Cabdilaahi ayaan insha Allah ka gudoomi doona waayaan la xaji telefishanka qaranka Gabiley.